xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay waraaqdii maxkamadda Somaliland ay dib ugu celisay guddiga doorashooyinka Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo ku hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn arrintaasi ka hadlay موقفكيغا ku aadan komishanka waraaqdii ay u gudbiyeen maxkamadda sare horaan u sheegnay haddaan nahay xisbiga kulmiye hay'adaha dastuuriga ee Somaliland aad baan u ixtiraamnaa imikana sidii sileed baan u ixtiraameynaa go'aanka ka soo baxa maxkamadda sare mar walba waa kama dambays nin kasta uu ku qaraar yahay marka go'aanka ka soo baxay sidiisaan anagu u taageerina aanu raali uga nahay ka komishanka ka soo baxana sidaas leeg komishanku xaq bay u leeyihiin inay waraaq u gudbiyaan hay'adaha dastuuriga waana lagu soo celin karaa waxay weydiiyeen waa looga jawaabi karaa marka mar walba anagu waxaan u taaganahay inaanu hay'ad walba sharciyadeeda ku ixtiraamno go'aankani guddiga doorashooyinku ay hore tala bixin uga sugayeen maxkamadda sare ee Somaliland ayaa intii uu hor yaalay maxkamadda sare waxa ka hadlayay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga UCID oo si kulul arrintaasi uga hadlay hadaba Axmed Cabdi Dheere oo raacaya hadalkaasi hore ee Faysal Cali Waraabe ayaa wuxuu yiri dhaliishii ugu faraabadnayd ee gaadhay ilaa iyo in gudoomiyaha reer lagu sheego waxaa soo jeediyay Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID oo tiraba malaa 3 jeer galay maxkamadda sare dacwadu leeyahay 2 jeer horta waan xasuusanay mar oo labada jeer bay isaga ay u xukuntay maxkamaddu xisbigiisa marna laga xukumay Jamaal Cali Xuseen oo isaga loo xukumay hadii dareernimo uu ku sheegayay iyo Jamaal Cali Xuseen laga xukumo Faysal loo xukumay marna Cabdiraxmaan Cirfo laga xukumay oo xisbiga ahaa intaaba marka aadan gudoomiyaha maxkamadda sare nin wanaagsan buu ahaa maantana waxba ma xukumin iyadoo waxa uu xukumin waraaqdii loo gudbiyay ayaa sidaa dogeed looga hadlay waxaan u soo jeedin lahaa xisbiyada mucaaradka iyo dhammaan shacabka reer Somaliland meelo aan la taaban karin inaynu leenahay baa fiican oo qarannimadeena ku ilaalino oo ay ka mid tahay maxkamadda sare oo kale inay go'aanka ma dambaysa yeelato haddii kale waxaynu isula tegaynaa tii geedkeenu ku noqonaynaa marka uu qof waliba yiraahdo taa kuma kalsooni komishankuna sidaas leeg bay u leeyihiin xor u yihiin hay'ad dastuuriya doorashooyinka iyaga xaq u leh meeshu haddii baarlamaanka ku celiyaan xaq bay u leeyihiin oo yiraahdaan sharciyada noo soo sameeya haddii maxkamadda u gudbiyaan xaq bay u leeyihiin maanta tay ku dhawaaqaan xaq bay u leeyihiin Axmed Cabdi Dheere oo aan hordhigay su'aal oranaysa in xisbiga kulmiye iyo waliba xukuumaddiisa ay wax baqdina ka hayso inay galaan doorashada aqalka madaxtooyada ayaa arrintaasi wuxuu kaga jawaabay xisbiga kulmiye wuxuu jiraa imika 22 sano 22 sanadood jiray codad badan buu ka helay shacabka reer Somaliland maalinta ururka hayla iyo maanta markii saddexaad ee uu gelayo way noqonaysaa inuu u tartamo ururo diyaar buu yahay ta madaxweynaha inuu u tartamo horena uu ugu soo tartamay waa markii saddexaad uu tartamay 2 jeerna uu helay marna waa lagaga guuleysto markii daahir yaale ta soo socotana saas leeg xisbiga kulmiye diyaar ugu yihiin wax noogu jira oo aan oran karo in ururada saddexda xisbi qaran saddexda midna waxba ugu jiraan oo kulmiye waa la mid wadani midna waxba ugu jiraan inay iska fadhiyaan bay jeceliyiin saddexduba laakiin sharciyada marka aad xisbi xaakim tahay aad sharciyada ka baydho way ku qasbaysaa inaad mid aadan jeclayn aad samayso anagu waxaan diyaar u nahay doorashadii madaxweynaha waxaan diyaar u nahay doorashadii ururada mid aanu ka baqanaynaa ma jirto taageerayaasheeduna diyaar bay u yihiin laakiin sharciyada aan laga leexleexan karin Batri Koosar Maxamuud Telefishinka Sahan Hargeysa